الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Waa musharax Maxamed Aadan Xarbi oo kula dukanaya salaada ciida gudaha degmada Yeed boqolaal ka mid ah reer Yeed ka gadaal oogista salaada ciida waxa uu musharax Maxamed Aadan Xarbi uu ku wareejiyay reer Yeed geel oo ugu talagalay in udxiyo ahaan loogu qalo kuwa ay ku waajibtay waxaana geelaasi kala wareegay qaar ka mid ah dheer garadka deegaanka degmada Yeed anagoo aad u faraxsan waxaan ugu talagalnay si farxadaas loo sii wado inaan 7 neef oo geel aan ku wareejiyo farxadda ciida awgeed marka waxaan ku wareejinayaa Yarow Cabdullaahi si uu ila wareego hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah inta in ka badan iyo soo dhaweyntiin ilaa shalay inta ka badan amadantiin maanta insha Allah waan idila joognaa hadduu Ilaahay yiraahdo cusub Maxamed Sheekh Aadan Xarbi geel 7 neef ah oo loogu talagalay shacabka inay maanta ku ciideystaan xaafadahooda kala duwan ee degmada Yeed in xaafadiiba qayb la siiyo oo noo iibiyay waan ka gudoonnay waana nooga mahadcelinaynaa 7 neef oo geel oo qaybtii labaad tahay xalayna qayb la qalay haddana qaybtan aan hayno qayb saddexaad aan xaafadaha kale ku wareejin doono aad baan nooga mahadcelinaynaa waa xildhibaankii koobaad ama musharaxii koobaad ee bulshada sidan oo kale ama u soo dhaweeya dhibka iyo dheefkaba oo la qaybsada ama nala ciida maanta waa maalin ciid adxa ah farxad waxay noo tahay inuu nala ciido aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa ciidan uu nala ciiday uu shalay maartay nagala qayb qaatay uu xoolaha iyo geela iyo hilibka ugu bixinayaan aad baan ugu soo dhaweynaynaa noo magaca kadalaw wees baliyare wees maxamed marka xaafadda lamaad aha maasha Allah waan soo dhaweynaynaa boqolkiiba xildhibaanka ninkooy marka waa mahadsantiin alxamdulilah waxaa magacayo maxamed cali ille waxaan ka tirsanahay dadka degan degmada Yeed waxa weeye hadda ka hor maana aragdee weli xafladan oo kale nin rabo inuu macnaha dadka wax u qabto dhalinyarada iyo odayaasha iyo haweenka isku keeno yiraahda waxaan gudooma weli maana arag waa arrin cusub de kama dhicin maan maaya wax arki ma jiro weli lama arag marka waxa weeye ruuxa bilaanka waxaasoo qabtay waxa ka fiican in dee bal niyadiisii iyo waxqabadkiisii waxa uu higsanayo in uu macnaha wax cad oo la garan karo dadkan intan dhan ninkan isku keenay yidhi waxaan gudooma asoon macnaha weli xildhibaan noqonin oo hadda xildhibaannimo raba waa arrin ugu weyn oo mahadanaynaa waa ka gudoonay geelan iyo waxaan farxadan iyo waxaan ugu soo waayay noo waa shacabkii degmada Yeed maalin ciida oo farxad oo waxa weeye maalimaha ciidaha islaamka ugu qiimo badan ugu muhiimsan ay ka mid tahay aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa Maxamed Aadan Xarbi waa soo dhaweynaynaa in la yiraahdo walaalkana oo saaxiibkana anigu si aan gaar si gaar ah saaxiib nahay haweeye dadkan intan in ka badan aad baa mahadsantahay Xarbi musharaxa xildhibaan ee kursiga sumadiisu tahay 56 ayaa sidoo kale kula sheexa qaar ka mid ah shacabka deegaanka meheradaha lagu qaxweeyay ee ku yaala magaalada isaga oo la qaybsanaya farxadda ciida sidoo kalena dadka ka wareysanaya xaaladaha deegaanka iyo waxyaabaha ay tabanayaan reer Yeed si uu uga dhigto waxyaabaha ugu horeeya uu wax ka qabto haddii uu ku soo baxo kursiga uu u sharaxan yahay degmada Yeed waxa ay ka tirsan tahay gobolka Boqol waxaana dadkeeda ay u baahan yihiin aqoonyahan samata bixi kara oo fahmaya baahiyaha ka jira deegaanka waxaana dadka qaar markii aad la sheekaysato ay ku sheegayaan in Xarbi uu yahay kii samata bixin lahaa deegaanka Muna Cabdiraxmaan Xuseen warbaahinta City degmada Yeed ee gobolka Boqol ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.